maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii November 2024 waxaa shir degdeg ah isugu yimi salaadiinta iyo guddida iyo uqaasha waxgaradka beelaha Habarjeclo shirkaasoo lagaga arrinsanayay colaadda soo noqnoqotay ee ka taagan deegaanka Qorlugud waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran qodobka koowaad dhul bahante iyo xulfadiisa in badan ayaanu ugu baaqnay nabad waana u xuntami weyday maanta waxaanu idin la qaadanay colaadda jeclaateen labo waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan Habarjeclo gudo iyo dibadba inay iska celiyaan cidii ku soo caqgudubta naftooda maalkooda iyo deegaankooda saddex shacabka reer Somaliland waxaanu ugu baaqaynaa inay gacanna dalka ku difaacaan gacanna ay ku codeeyaan afar qodobka afraad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee sharafta leh waxaanu leenahay garabkiina ayaanu taaganahay waxaanaynu u midaysanahay difaaca dalka iyo badbaadinta qaranka Somaliland shan waxaanu soo dhawaynaynaa dhammaan beelaha reer Somaliland ee u diyaar garoobay difaaca dalkooda iyo dadkooda mar labaad waxaan ugu baaqaynaa shacabka beesha Habarjeclo inay iska celiyaan cidii soo doonata